الحمد لله عاو وحن آدي آد وفرح سنة هاي إن أنا مونتريال كسو الدوري على هالكلمة إن نيلا فرحو نيلا جوجو عاو هبين تاريخ له هبين كاس إن هبين كان عاو إن كقرن قاتو بان آدي آد وفرح سنة aniga hadalkayga waa soo koobayaa waxaan ku soo koobayaa dadkii igu horreeyaba way soo koobeen marka example baa la itusiyey iyo wanaaggii marka anigana waa inaan wanaagga sii wadaa ilaahay bini aadam wuxuu haddaan bini aadam nahay laba furur buu na siiyey laba bushimo maxay ahayd dadka lagu cayayo mid dadka lagu faaniyo caawa marka bushimada waa midda ugu korayso oo dadka lagu ammaanayo caawa waa shaqadaas waxaan halkaas kugu nimid caawa waxaan na hor yaallo the man ninka and the moment iyo waqtiga waxaan isku raacnay halka la keenay the man inuu yahay Dr. Farole Waninka man, the man, Waninkas. Was the man in the arena. The moment Wahada. Waninka a Budla Duba Hantai. Really? A little first fusion. First one accent of Buyo. Or Marathon Damara, BJ Hayo. Let me stago. Elamira first go up with Delia. فرس كاس معلوم صعبة ما أنت فرس كيفوزن داي بوملاند فرس كيفوزن داي سوماليا يا وفرس كاس جنسيكا أو نيجرجا دكتور فرول مركا وقتك استوى ninbaa u soo baxo waa liiga hormaray waa la sheegay anna waa ku celinaya maanta Soomaaliya ninka ay u baahan tahay the man ninka ay u baahan tahay waa Dr. Farol waana tusiyeen meeshaan Jubbaland markii la ciilay ay isku dayeen kuwan dabaalada ah fiiri dadku ogal oo ku raba lama diidiyo ay waa la soo dhaweeyaa Jubbaland sidii Puntland oo kale Puntland bayna ku daysato oo sidii Puntland oo kale inay noqoto Soomaaliya hal tir baa u taagan tiirka Soomaalida ugu xoog badan oo u taagan waa tiirka leeyahay Puntland marka Abdullahi Farole Abdurrahman Farole wuu tusiyay ma aha nin gobol kaliya ku siman waa nin Soomaali oo dhan Soomaali markii meel kasta Soomaaliya ama qof kasta Soomaaliya markii la ciilo waa ninka uu istaago taariikhdu waa xasuusinaya hadda aragto hal qof sida Cabdiraxmaan sida Farol oo kale oo successful ah oo wanaagsan oo wanaag u dhaqaalayo macnaheedu waxa ka dambeeya dad baa ka dambeeya wanaaga kuwa mataqaana la rabo oo wanaaga ku caawinay Puntland waa waxay tahay waa guriga Soomaali nin kastoo la ciilo jareer ha aado kuwii aan u bixin galagala ha aadaano oo Ismaaciil wuxuu loo bixiyay magaca wanaagsan ma jiro marka nin kastoo la ciilo bal fiiri halkan meeshaan aniga Mareykan waxaan imid 1965 نوح ولا يسحب نوح محمد مين عند نوح محمد نوح محمود
نوح محمود بارد عجو دلبا اسكو دايين حسوقان waxa soo dhaweey oo gurigaan waa gurigaaga walaalo soo dhaweey soo dhawaaw wixii lagu sheegay ma tiida galagala ma tiida laga halkaan soo galo marka waa taariikhda marka waxaan rabaa hadda anoo ku sii dheeraan hadalka waxaa fiican inuu yahay hadal yar oo dadka xasuusanay marka aniga inta aan imaanin waa fakaray markii la yiri kaalay waxaan goostay inaan gabay niitiriyo gabay oo Soomaali ah laakiin aniga waa iska ogtiin saan sheegay 65 kibaan imid haddaan wadankii ku noolaa lahaa 65 markaan qalinjiyay Mareykanka ka baxay ilaa hadda ku noolaa lahaa dee afgriis kuma gabiyaana Soomaali ku gabi lahaa sidii abgaalkaan ka dhasho kala baan sirbi lahaa marka waa adduunyiga doon waxaa la yidhaha adduunka intaa ku raagto wax kastaba arkaysaa geeldhalayna waa arkaysaa abgaal ingiriis ku shirbaayna waa arkaysaa marka walaalayaal intaas waa hore dhici marka hadda bal gabaygii baan hadda tirinaya gabaygii aniga waxaan ahay nin oday kastaba Soomaali ku maama oday kasta waxa lagu xanto waa ogyahay marka aniga lagu xantay dibadda la soo dhigay nin baa meel wuxuu ku soo qoray oo isku sheegay magaciisa Dr. Ali Hiraabe wuxuu leeyahay togana waa wataa tusbuxu wataa togane tawxiidkiisana waa majeerteen saas markuu ileeyahay asaga wuxuu leeyahay togana xifaalay oo cabditaxana togana caay laakiin aniga ammaan baan u haystaa waa ammaan way ammaan marka inta aan gabayga fikirkiis ku sheegin Soomaali baan nahay afka hooyo baan ku sheegaya waa ka xumay laakiin xagga rhythmka iyo rhyme-ka iyo iskuma keeni karaa Soomaaliga laakiin waa iska garanaysaan gabayga wuxuu leeyahay anoo wiil yara aniga waxaa la yiqiinay Shibane waan aamusnaa hadda laakiin waxay ku dhacay garan maayo markaan haleeya mar afka aan kala qaaday baa aabahay wuu yaabay si aad tugane cawada jawaab gaal wuu yaabay wuxuu yiri bal wiilkaan dhegeysta aabahay hal su'aal baan weydiiyey ilmaha waa yaab noqotay ilmaha wax kastaba intaana maartay ilmaha eenan maartay aan lama taqaanaa si kale aan la duubsan runta bay ku hadlaan aabahay su'aal baan weydiiyey waxaa yidhi aabe أنا ما أبغى أبغى مثلاً جرثان. أبغى إحساس بوي هيك بركز زلمان إنه معك وده. وأنا أبغى معك وده مركز تو بلاين ما قبضته. أفقع قبضته وعن ترى طول بيرا يا مجرثان. مركز أبغى بحاولي هو إذا طول بيرا يا أبغى. ما إنه يروح عن ولا يطول بيرا يا مجرثان وحوي بل أيضا نعيشتني إنك كعبه مركب قبل حالي يجري نوح عيسى جستي نوح عيسى سوما وعندس مركب بالإنجليزي كمان عنده كل شيء دقيسته صعب كان الله بخيلنا يا 70 Here it is. My name used to be Shibane, the quiet one. Until one day the good Lord said to me, I am the Lord your God who brought you out of the land of the horrible Hawiyat. Out of the land, out of the hottest region, a bottomless pit of scorching fire that Allah
had promised the hypocrites, Hawi, out of the land of the Mudulot into the garden called Peaceful Puntland. Open your mouth, and I will fill it with truth flavored with wisdom, with sobriety, with sanity, with serenity, with sagacity, with sweetness. Therefore, I opened my big mouth wide and said to my dad, Dad, do tell me, please, once and for all, are we Abgar or are we Majarten? My son, what makes you ask me such a strange, clannish, loaded question? Dad, I ask you that because every time we Ertugan are caught in catch-22, in cul-de-sac, in a conundrum, you run to the Majarten yelling, Toga ya Majarten. You don't run to the Abgar. My father laughed a thundering laughter, for I caught him red-handed in contradiction, in an inconsistency. He could not believe the question I had put to him. He called upon everyone within hearing distance within the neighborhood and begged them to listen, bidding me to repeat the question. I did. And then he launched into this performance. Son, just like you, I had thought I was Abgar. Until one day, our neighbor, my friend Farah Ashur, who was Rubahandik, gave me this lot, upon which the Tugana household stands today. Son, just like you, I thought I was Abgar. So I went to the Abgar for help, for I was penniless. I went to your uncle Dafa, the richest Abgar, and asked him for a loan, so I could build a home for my family on the lot, the Rubahandar lot. Dafa responded to my plea for help in this way. Togene, if you try to do the impossible, if you try to reach for the unreachable, you break your back, you break your ass, you are too poor to build anything. Let me buy this lot of you, let me relieve you of this burden. I refuse to sell, I refuse to accept defeat. The next morning, Saladik Badi, Allah reminded me that He had given me friends galore who would help me if I had asked them. So I duly called upon my closest friend, your uncle Haj Gurmune. Haj Gurmune, who happened to be Majarten. When I unburdened my mind to my friend Haj Gurmune, he invited me to get into his car and took me for a ride I shall never forget as long as I live. He drove me to the quarry in Mogadishu and arranged with the owner to give me all the stones that I will need to build a home, and then send him the bill and send the bill to him, not to me. And then he drove me to the biggest Home Depot in Bondere in Mogadishu. And he arranged the owner to supply me with all I needed to build a home, and then send him the bill, and not to me. And then he drove me to the home of the master builder of Mogadishu, one called Fundi Fairwin, and said to him, go with your building crew and build this here, my friend, to get a home, and then come to me for your daily wages, and don't bother Sia to it. Finally, he ordered me out of his car, saying, there, I have built you a home. Now get out of my car and God bless. Unless you have another burden to share with me. My father said, I was moved to tears. I babbled, Haji, you forgot to arrange with me how I will pay you back. So Haji said, so please tell me how and when will you pay me back?
said, I replied, I will pay you back as soon as my oldest son, Mohammed Siad, begins to work. Haj Ulmuna replied, it is a deal. As soon as my brother Mohammed began to work, I remembered my promise and I am proud to say I performed it. I gave Haj Ulmuna 300 shillings, which was the whole monthly salary of your brother. Haj Ulmuna refused to take the money, saying, what is the name of your second son? Mahmoud Siad Tugane, my father replied. And then Haj Ulmuna said, start paying me back when Mahmoud begins to work. And when you began to work, my father said, again I took your first salary, which was again 300 shillings to Haj Ulmuna, who again refused to accept it, saying, I consider it an honor that I had built my friend Tugane, that I helped my friend Tugane when he most needed me. Allah had already rewarded me for what I have done, for I have your love, your friendship, your gratitude. Who can find a faithful friend of the Majartan like Siad Tugane? For his price is above rubies. Siad Tugane, you have given me and the Majartan of Mogadishu your priceless friendship. The greatest gift of life for friendship is a single soul dwelling in two bodies. The home I had built for your family, I had built it for myself too. Our Prophet Muhammad said, the only wealth that you have is the good that you do on this earth. And then my father turned to me and asked, now my son, tell me once for all, are we Abgal or are we Majartan? I said, Daddy, not only are we Majartan, any Somali with any sense, with any emotion is Majartan. All Somalis are Majartan. Every Somali is Majartan. And Puntland, the home of the Majartan, is the home the Majartan had built for all Somalis. Go ask Ertugan, go ask Galagala, go ask Nur Ismail, go ask Jerwini. Let the idiots taunt me. I am most proud to chant day and night. Tugane tusbax wa wata, tawxiidkiisana waa Majartan. Thank you very much. halkaan ka hadlayno waa Leeli TV iyo barnaamijkeena hadiyaddan waxa macaawa marti noo ah oo aan ku soo booqanay xaflad aad u qiimo badan oo ka soo qayb galay Professor Tugane su'aasha ugu horeysa aan ku soo dhawo Leeli TV barnaamijkeena hadiyaddan waxa uu meesha aan ogaan meesha adigu ma tihi Puntland ma taqaana dadka musharaxiinta ma taqaana wax kama taqaanid waxa meesha waxaan loo sheegay mid waxa waaye ilaahay wax uu ka dhigay وأنا هذا دورته إن أنا قطع ساس شيء تفكر كل فتاني قريب بلاد نقول لي ما أنت لكن أنا نيدي مركز وناك بندلند كسر الصومالي أردن وناك سيدنا ويرس وحن قارئنا كل دور عليه البندلند بس كده أنا واحد كو أركان من هم يكسروا جدنا وهم جابتين أوكي وسؤال في عام مسؤولية وحنا كدم بيسا ما واحد لو قفتي oo lagu caawiyay dadka Soomaaliyeed way is caawisaa mutaasab keenaysa inaad dadkaaga oo dhan ma taqaana aad ku durto khaasatan afgaan ma yarun baan sheegaya aniga nin abgaalka markuu fiican yahay oo wanaagooda anaa qalbigii iyo afkii maskaxdeeda leena sax waan ognahay abgaal iyo jeerteen waxa ka dhaxayso walaaltinimo iyo wanaag iskurona markii la asaasay markii leegada la asaasay waxa iftiinka noo ahaa oo noo keenay ra'yigaas
inaan Soomaali nahay inaan qabiilka ka guurno oo weliba wax xasuustaa hayski kan waa adoon kan waa ugaas waa inaan ilaawnay kan waa abgaal kan waa saas waa inaan ilaawnay marka wanaagaas markii ay wadeen walaalahan xamar ay ku wadeen مجرتين قوية حمر سكورهم بيجوكين حتى لكن مساوكت المكتب والمكتب كفافل مركا حتى قارانك مجرتين قارانك وحول بحجري أبقى بقول بحجري مركا أنا أقول حق السوق جيدا حرير دير وكدح مجرتين إيه أبقى حرير مركا مجرتين وناقص إيو أكورد كاس كدحي ما مددك نقول لي مركا أبقى عيناي مركو بلوفر مركو حسوسن وحي داعي because شال وحي داعي سيد هذا نينك أضيع شيء يا حاج قرمون حاجيال بدن بعد بدن باجر هذا كلا وسومالي ولا كده مجرتين مركو ونا وقت النطق أبدأ ولا وقت سومالي ونا وقت مركو أنا إلهي مستقبل تركي مر بينا نقول له هوستج صح من كستو الصومالي أو وناو مجرتنا هذا إسكت ده متجانا ووراك من كسان سواء رتاد دولة الفدرال خدت جرته هذا دولة ما هتاس تسمرت حقو جديدة ما يكون جديدة وواحد جلدين زي دولة إلى علينا يعني أسكر أجنبي دولة بقى فأديك هدا أنا جي أديك واقع وضد ما أنت عصر وحباي وديني سي شرف الله بشكل سنة هدي ما أنت ويسهل استاجون من محل يدان قال عد صوته أنه وراك يجي إلى علي يوديلني يا بقول له يوسف الحمامة إيه أنت مركب وراك أنا جا حسن قصة يقص لي إن فاني أنا أجعل والنوم أصلا سيدا أنا وكلا لكن وادقوا أنا حسن هاي حمزة يدبر محوري حتى أنا وجه بلق ما العقل جل وقص وقلا عقل ما وصل قدي لها حسن هدود أدان وجه حسن ما العقل جل وقص وقلا ولكن حسن عقل ما وصل قدي سير بتاع مركب دولة الفدرال كوش قيسو سير كوش قيسو وأوشك from the get go beginning بمشي وحن كل ولا كبرية كل وانو كسواني ولا لو تير كاس نوت تاجنا غير بوملا دت كاس شرفت له دت كاس كسودوي دت كاس كجعل أو أدو فرح أو ضغط ميلون ويلوار بحال كسوكو صح حق وذي ولا لو كلها مواي حدو حسن ساين أسرع مرة بوملا وكل لها وردت كوسو أرده دت كجعل وما لا لواء كان ذاك حاعم حاد كرة الله يسوي قدام بيسينيسا حاول تقول لي كان 6 سنة ما وقعت صح 6 سنة هل سنة هو قصاري صح شكسبير وحيري there is a tide in the affairs of men yeah there is a tide in the affairs of men هيرباجرو و affairs of man انت قال هيركاس باوضو هيركا taken at the flood مركوب وحمركا دلقتنا it will lead you to fortune and fun فهمت لكن هذا هيركاس آدم كقرب قلنا آدم كبودين ما شرح كلامي إسكنتي أتسكتور دم بدو عريس بس كحلا يفتوه كجويسة قدر الجمل هذا سوى ما يرجو إلهي ولا مو قصة رجو ولا لكن مركب على جربه وأنا ذا ضدك وناق الله رب سيد أنا وكلا سيد فرور وكلا سيد من قصة سومالي وناق إن بدونه إنه دقيستو وريا ضدك كرليكو ضد يا كرليكو يا أنا قد ضدك يا شرف يا أنا جعل وحنا هي أغلى علمي كل وحكرامة وضدك الصومالي بعد دبتها ضدك الصومالي الرب لكن أنا قبل سياسي أنا قبل وحنا هنن أو ربو صومالي وناق الرب